sida la socotiin baasaboorada Soomaaliya tan iyo burburkii dowladii hore 1991kii baasaboorradii waa la diiday in la aqoonsado. Dowlado fara badan ayaa waxaa arkaysa xitaa hadday viisa ku siiyaan viisa warqad ahaan la isu siin jiray baasaboorka laguma dhufan jirin. Taa macnaheedu waxay ahayd in baasaboorkan la aqoonsaneen. Marka dadaal dheer ayaan u galnay. waxaan go'aan ku gaarnay in aan dowladaha Yurub ka dhaadhicino inay muhiim tahay in baasaboorada Soomaaliya aqoonsadaan. su'aalooyin fara badan ayayna weydiiyeen, baaritaan ayay galeen, waxay fiiriyeen eegeen softwareda softwareka uu baasaboorka lagu apply gareeyo iyo wixii oo dhan markay eegeen waxay ogaadeen in baasaboorka Soomaaliya runtii uusan ka xumeyn baasaboorada kale mataqaana inuu ka fiican yahay moodo baasaboorada kale oo Afrikaan ayaga hore u aqoonsadeen. Faransiiskii Talyaaniga mar hore ba aqoonsadeen. Shalita ugu dambeysay ayaa Belgiumka iyo Luxembourg wadanka la yiraahdo oo aqoonsadeen baasaboorada Soomaaliga diblomaasiyiinta iyo serviceka shaqaalaha. Waxaan sugaynaa oo kale Netherlands haddana inay naga ogolaato oo goordhow aan ka sugaynaa warqadihii iyagana ay sidaas oo kale tabtii ay raacday Luxembourg iyo Netherlands Belgium inay raacaan. Xarunta midowga Yurub Belgium haddii ay ogolaadeen baasaboorkan suurtagal ma noqon kartaa in wadamada dhimanna ay laftigoodu qaataan talabadan oo kale oo ay ku aqoonsadaan baasaboorka Soomaaliya? aad bay u badan tahay hadda wadamada runtii soo haray oo qoladii horta la dhihi jiray Western Europe oo soo haray hadda waxaa ka jiro waa kuwa ugu yaryar sida Spain iyo Portugal iyo Greek iyo Sweden moogi inta kale badanaa mataqaana ay way aqoonsadaan. Sweden waxaan rajaynaynaa goordhow inay aqoonsadaan. Marka aqoonsiga baasaboorka hadda diblomaasiga iyo mataqaana kan shaqaalaha waxaa ku xigi doono aqoonsiga baasaboorka caadiga ee Soomaaliga. wadamada Scandinavian-ka waxaa ku nool Soomaali badan sida Norway oo kale waxay soo rogtay in baasaboorka Soomaaliga dadku ay qaataan si sharciyada deganaanshaha loo siiyo. waxaa jirta cabasho xoogan oo ka haysatay dhinaca u safrida goobaha laga qaadanayo baasaboor Soomaaliga oo Belgium ay ugu sokayso. Talyaaniga waynu ogeyn iyaduna sidoo kale waxaanu helnay warbixino sheegaya in Paris lagu daray goobaha wax laga qaadanayo. arrintaas baahida jirta see loo aqoonsanaya? baahida Paris waa lagu daray, waxaa kaloo lagu daray mataqaana Germany. marka arrimaha mataqaana si dadka Soomaalida joogta Norway iyo iyo Ireland iyo ay sheeganayaan aysan imaan karin halkaan, taana shaqo culus aan ka haynaa. xiriir toos ah aan wada leenahay hay-adda immigrationka ee Soomaaliya. iyagii ayaa mataqaana waxbaan isla qorsheynaynaa kadibna arrimahoodas waan dhammayn doonaa haddii la yidhahdo. ugu dambeyn qiimaha hadda baasaboorka Soomaaliga uu leeyahay marka ay noqoto dhinaca tayada heerkee baad ku qiyaasi kartaa markii loo eego baasaboorada adduunka? runtii baasaboorkeena tayadiis aada loo ammaanay. wuxuu ka mid yahay baasaboorada ugu fiican xagga security-ga baan ka hadlayaa. waayo baasaboorka qiimihiisu waxa uu oo lagu qiimeeya inta wadan lagu tagi karo. marka maadaama anaga wadan iska mataqaana faqri aan nahay oo Afrika ka tirsanahay, baasaboorradeen sidaa ka warqabtay meelo badan laguma tagi karo. laakiin xagga security-ga baasaboorka isku aaminaada iyo markii loo eego waxaan ku jirnaa baasaboorrada ugu fiican adduunka